وحنين شيء يا رمضان كمان توسدح ما شاء الله بالكريم horta waxa ugu xun waxa waaye yaa tolkaaga ku fahmi waaye ma fahanteen tolkaaga oo ku fahmi waaye ugu xun ma fahanteen tolkaaga ku fahmi waaye ugu xun marka waxaan ii sheegaa oo daacad ah oo hal beena ku jirin warkaa magaalada wada iska dhaafa yaa horta waxa meeshay ka guurayaan iyo meeshay u guurayaan horta waa inay micno dhali karaan micnaha ay dhali karaanna waxaa waaye in ay gaari karin meeshay hamigooda oo ku jiro ani sidaa u fahmi waayo inuunan gaari karin meeshuu hamigooda ku jiro aani u fahmay guryahooda ku noqona aniga ma jecli waxaasiiti waxaa jeclahay runta in dadkan la tuso haddayna tusi karinna de marka qurba joogta aa imaato ha ka talisa meesha dadkan waaweyn aan dhehayno war maanta waxay qaban karaan wax ka fiican aan qaban kartiin laakiin iyagaa nagu dhegan ma fahanteen iyagaa nagu dhegan oo dhahaya may ha may marka waxaa leenahay waa dadkayow waa dalka ha loo turo maanta farmaajo hadduu sidoo rabo niga yeeli karo haddaa shalayta adinka sidaa rabtaan naga yeeli karteen berito kan imaanayan sidoo rabo naga yeelana marka meesha wax laguma haayee runtaa fiican horta in la isdejiyo nabaddaa ku jirto nabaddaasna waxay dhigaysaa in oo yacni qof aad dagaal kuma jirto oo kaa sii jeesto mase aslugu ku dhacay mase yacni qofkaas camal waxau arkaa aniga inaan maxaa la dhahaa oo yacni gacan loo qaadi karin ma fahanteen marka dee 2 sanaa sheegteene 10 sano kaleetana yaa aan ku darsaa haddoo dhaho anaga kama yeelayno laakiin idinka oo xagga jooga inaa yeeshaana laga yaabaa ma fahanteen anaga laakiin kama yeelayno anaga waa ka diidannahay wixiisoo dhanna waa ka hor dhacsanna tiim farmaajo canaan ay weligooda hilmaamin ayaa ku dhici doonto canaan ay weligooda hilmaamin doonin ayaa ku dhici doonto ay weligooda ka sheekeyn doonaan insha allah bilkariim haddana waxaan idin leeyahay warragow dadkaygow dalkaygow isku tura waa bir ramadaan qalbi saafar iskaga dhigo kusi jaceylkaaneed iyo sharootadan iyo bila Soomaaliya iyo bila Hargeysa iyo meelaha la isku dejinayo dee waxaan laga baxo dalkii nabad ha ka dhacdo dagaal horta ha igu sheeginba dagaal ma rabo sababtee xabada dee dhacdakay ku dhacaysa aniga waa ka ridaya aniga waa kan dhaawacmaa kan dhimaha aniga waa i dhibe Soomaaliyaan ahay waa i dhibe aryaada waa i dhibe ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay nabad ku afura bashbashii barwaaqo waa dalkii waa nabad
hala ogaado